filimka ayaa ku bilaabanaya xabsiga halkaas oo nin lagu magacaabo Red uu ku xidhan yahay kadib markuu bangi lacag ka dhacay waxaana lagu xukumay 5 sano xariga balse markuu 2 sano oo kaliya xirnaa waa la sii daayay markuu banaanka u soo baxay waxa ku sugaysa xaaskiisa taas oo lagu magacaabo Joy isagii xaaskiisu waxay dhaleen gabadh lagu magacaabo Beatrice si kastaba ahaatee Red guriga markuu ku laabto wuxuu la hadlayaa gabadhiisii yarayd goobta ayaa markaa u wareegaysa garoon diyaaradeed halkaas oo nin Farisiisa oo lagu magacaabo Laak uu joogo wuxuuna u muuqdaa in dhibaato lagu haysto isla mar ahaantaana dhibaatadii waa la xaliyay waxaana soo baxday in ninkani uu yahay nin maskixiina alashan nin waalan inuu yahay oo ka yimid Mareykanka si uu helo bartilmaameedkiisa alashan si uu qof u dilo ayuu Mareykanka u yimid si degdega ayuu uga baxayaa garoonka diyaaradaha isla mar ahaantaana wuxuu u baahan yahay inuu gaari raaco ama uu taksi dalbado balse taa bedelkeeda wuxuu aadayaa goobta baabuurta la dhigto oo damcayaa inuu xado mid kamid ah baabuurta meesha taala balse nasiib wanaag ninkii gaariga lahaa ayaa ku qabtay oo damcay inuu booliska u waco si uu ugu sheego nin waalan oo doonaya markaa inuu xado baabuurkiisa inta uusan booliska wicin Laak ayaa wuxuu la soo baxayaa mindidiisii oo dhuuntu kaga dhufanayaa miskiinkii gaariga lahaa hadda si xor ayuu isticmaali karaa baabuurkii uu dilay ninkii iska lahaa inta kadib baabuurkii ayuu ku tagayaa goob baara oo haysto nin lagu magacaabo Tom waxaana soo baxday in ninkan baarka iskale uu garanayo ninkan sida muuqatana uu cabsi ka qaaday markuu arkay dilaagan wuxuuna u malaynayaa in Laak uu yimid inuu isaga dilo balse taasi waa cabsi uu iska dhaadhiciyay wuxuuna u yimid in Tom uu siiyo hub maadaama Tom uu yahay ninka ganacsada hubka sharci darrada Tom ayaa inta kadib Laak u kaxaynaya qaybta sare si uu tuso hubka meesha ugu xasaysan isla mar ahaantaana Laak waxa soo jiitay qayb kamid ah qoryihii meesha yaalay wuxuuna bilaabayaa inuu qaato mid kamid ah qoryaha oo uu rabo markaas inuu tijaabiyo wuxuuna ku dhufanayaa mid kamid ah dadka wadada taagan arnin waalana Laak iyo Tom waxay ku soo noqdeen qaybtii hoose baarka halkaas oo saaxiibadii Tom ay caayeen Laak isagoo kala labayn wuxuu isla markiiba bilaabayaa inuu rasaaseeyo raggii oo ku jiro Tom oo ah ninkii markaa qoriga siiyay nin waalan wajhi ma lahan inta kadib waxa la tusayaa ninkii Red lagu magacaabi jiray kaasoo fiirinaya rinjiga gurigiisa rinjigaas oo ay xaaskiisu marisay wuxuuna la yaabay in derbiga gurigiisa iyo derbiga xabsigu ay isu egyihiin waxaana sidoo kale soo baxday in xaaskiisu ay caawa rabto inay ka qayb gasho bandhig kaasoo lagu soo bandhigayo sawiro waxayna ninkeeda u sheegaysaa inuu kala soo qayb galo caawa balse isagu ma fahansanaa bandhigan qaybta xigta waxa la tusayaa nin lagu magacaabo Drake oo ah mulkiilaha goobta wax lagu soo bandhigayo si lamid ah waxa la tusayaa Joy oo diyaarinaysa sawirkeeda si loo soo bandhigo caawa fiidkii Drake wuxuu geeyay qolkiisa Joy oo ah xaaskii markaa Red halkaas oo ku sasabayo oo isku dayiyo inuu soo jeediyo iyada balse si cad ay uga diiday oo xitaa ay uga hanjabtay inay u sheegi doonto dhaqankiisu aan haboonayn ninkeeda oo hadda xabsiga laga soo daayay arfaraha ila saad walahi ninkii qabtumaya markuu taa maqlay Drake aad buu argagaxay dhan kale waxa la tusayaa Red oo booqday goob ganacsi uu leeyahay saaxiibkiisa aad ku wanaagsanaa kaasoo lagu magacaabo Leroy waana saaxiibkiisii tuuganimada marka ay ka sheekaysanayaan waaya aragnimadoodii dhowrkii sano la soo dhaafay nin ayaa soo muuqday oo soo galay markaa dukaanka ninkan ayaa lagu magacaabaa Ernesto waana sarkaal boolisa wuxuuna wali ka shakaysan yahay in Red uu dib ula kulmay saaxiibkii isla mar ahaantaana Ernesto wuxuu uga digayaa Red in mar dambe uu sameeyo qaladkii markii hore u geystay oo ahaa inuu bangi dhacay isla markiiba markuu askarigu baxo Leroy wuxuu Red u kaxaynayaa qol dhulka hoostiisa ku yaala halkaas uu doonayo inuu tuso lacagtii uu soo xaday intii uu xabsiga ku jiray taas oo u dhigantaa lacagtii ay bangiga ka dhaceen Leroy ayaa markaa ka codsanaya Red inuu furo qasnada isagoo damacsan inuu ogaado in weli uu leeyahay xirfadii tuuganimada ahayd laakiin uu ku guuldaraystay inuu qasnada furo xabsiga intuu ku jiray ayuu ilaaway sida loo jabsado meel amaana laakiin Leroy wuxuu hubaa in maalin uu xirfadiisa ay u soo noqon doonto hadda Leroy ayaa furaha ku furaya qasnada wuxuuna tusayaa lacagtii meesha ku jirtay oo ah lacag gaaraysa $600,000 waxayna qorsheynayaan in lacagta meesha ay ka bixiyaan balse taa ka hor Red wuxuu Leroy u sheegayaa in caawa xaaskiisu ay leedahay bandhig oo kala qayb galo ka hor intaysan lacagta meesha ka bixin meel kale ninkii waalaa ee lagu magacaabi jiray Laak wuxuu joojinayaa baabuurkiisa kadib markuu arkay baabuur kale oo damcayo in markaas uu ka haysto gaariganna
maadaama kii horeba uu dilay ninkii watay si fudud ayuuna markaa u helayaa gaadhigii kadib markuu toogtay ninkii iska lahaa laakiin markan si taxadar la'aan ayuu u wadaa gaadhiga waxaana joojinayaa booliska roondada ah laak isagoo adeecaya booliska ayuu ka soo degayaa gaadhiga isla mar ahaantaana wuxuu tooganayaa ninkii bilayska ahaa ee joojiyey war indha adakaa nin waalani habeennimadii Red iyo Leroy waxay booqdeen bandhiggii sawirada ee Joel iyaga kaliya ma ahan waxaa sidoo kale yimid Ernesto oo ahaa ninkii sarkaalkii booliska ahaa maadaama uu boolis yahay wuxuu rabaa in meesha amnigeeda uu ilaaliyo nasiib darro Joel dib u eegis fiican kamaysan helin sawiradeeda iyagoo ay ku jeesjeeseen garsoorayaashu Red ayaa aad u cadhooday markuu arrintaa maqlay oo xitaa uu weerari lahaa haddii uusan saaxiibkii qaban goobta ayaa markaa u wareegaysaa gabadh yarayd ee lagu magacaabi jiray Beatrice oo ahayd gabadh yarayd uu dhalay Red taasoo guriga la joogta gabadh lagu magacaabo Lolita iyagoo raba markaas inay seexdaan ayaa si lama filaana waxa soo garaacaya guriga qof markii ay furtay waxay aragtay qof qalaad oo doonaya markaas inuu guriga soo galo qof kalena maahan waa ninkii waala ee lagu magacaabi jiray Laak ujeedada uu Mareykanka u yimid waa inuu dilo Red markay aragtay qof waalan oo doonaya inuu guriga soo galo Lolita ayaa dagaal qaaday si ay guriga uga saarto balse taa beddelkeeda Laak ayaa gabadhii dilay inta uu ku mashquulsanaa dilidda Lolita Beatrice ayaa goobtii ka baxsanaysa Laak wuxuu isku dayay inuu toogto laakiin uu ku guuldareystay sababtoo way ka fogaatay iyadoo wuuna ku fashilmay inuu gabadha yar dilo waana markii ugu horeysay ee uu ku fashilmo qof uu is yidhi dil guriga ayuuna ka baadhayaa Red ilaa ugu dambeyntii uu ogaaday goobta uu joogo wuxuuna helay kaadhka martiqaadka bandhigga Laak ayaa ugu dambeyntii soo galay goobtii bandhigga wuxuuna toogtay dhammaan dadkii goobta joogay oo ay ku jireen garsoorayaashii goobta taasoo keentay in dhiigooda uu ku daato sawiradii Joel qofna iskuma dayi karo inuu joojiyo marka laga reebo Ernesto oo qori watay si kastaba haatee markay israsaasayni dhacday Leroy waxaa ku dhacday rasaas taasoo keentay inuu dhaawac halis gaaro ka hor inta uusan miyirbeelin wuxuu furihii qasnada u dhiibayaa Red ayaa markaa u ordayaa inuu badbaadiyo reerkiisa nasiib darro Laak wuxuu arkayaa iyagoo baabuurku cararaya isla markiibana wuu ka soo daba tegayaa baabuurka dhexdiisa Red wuxuu xaaskiisa u sharaxayaa cidda uu Laak yahay iyo sababta uu u laynayo wuxuuna u sheegay inuu isaga doonayo inuu dilo wuxuu dhahay Laak waxay walaala yihiin nin aan saaxiib ahayn markaan tuuga ahaa habeenada ka mida ayuu ku dhintay tuuganimada eediina anaa dusha layga saaray calashaan ninka adaa dilay dhimashadiisa awgeed ayuu ninkani u daba joogaa oo uu rabaa inuu walaalkii uga aaro wuxuuna kaloo xaaskiisa u sheegayaa in hadda uu qasnad ku haysto lacag gaaraysa $600,000 taasoo xaaskiisa la yaab ku noqotay isla mar ahaantaana xaaskiisa wuxuu geynayaa goobtii ay qasnadu taalay wuxuuna xaaskiisa iyo gabadhiisa ka codsanayaa in gaadhiga ay kusii dhex sugaan inta uu u soo noqonayo markuu gudaha galo isla markiiba waxaa soo muuqanaya Laak oo u kaxaynaya xaaskii Red si ay ula kulmaan Red oo markaa jooga qolka hoose Red wuxuu og yahay in Laak uu dili doono xaaskiisa iyo gabadhiisa haddii uusan wax samayn sidaa darteed wuxuu bixinayaa dhammaan lacagtii qasnada ku jirtay si Laak uu u daayo noloshooda si kastaba haatee wadaxaajoodkoodu wuxuu ku dhammaaday fashil laakina si toosa ayuu u diiday dalabkiisa isagoo markaa bilaabay inuu Red toogto inta lagu guda jiro foodada Beatrice oo ah gabadh yarayd ayaa si lama filaana markaa u gelaysaa qasnadii ay lacagta ku jirtay isla mar ahaantaana Laak ayaa qufulaya wuxuuna damacsan yahay inay u dhimato oxygen la'aan intaa kadib wuxuu eryanayaa xaaskii Joel waqti badanna kuma qaadan inuu helo wuxuuna bilaabayaa inuu feero ilaa ay ka suuxdo waala dhan kale Red wuxuu muujinayaa inuu nool yahay waxaana soo baxday in xabaddii Laak uu ku riday aysan ku dhicin waxayna ku dhacday furihii qasnada oo ku jira markaa jeebkiisa dabadeed wuxuu isku dayayaa inuu furo qasnadii si uu u badbaadiyo gabadhiisa yar balse nasiib darro uma furmayso qasnadu maadaama furaha ay xabadi ku dhacday hadda waqtigan la joogo waxaa kaliya uu ka codsan karaa gabadhiisa inay istajiso oo ay neefsato inta uu hooyadeed badbaadinayo nasiib darro isla daqiiqadaaba Laak ayaa soo laabtay oo gacan ka hadal ayaa dhex maray isaga iyo Red ugu dambeyntiina Laak ayuu u suurta gashay inuu koreeyo oo uu qaato markaa qori laakiin xilligan Ernesto ayaa yimid markuu arkay Laak oo ku dhow inuu dilo Red dhowr jeer ayuu markaa tooganayaa iyagoo mooday inuu dhintay Laak ayaa wuxuu soo saarayaa 2 bumbooyin isagoo damacsan inuu qarxiyo goobtaba laakiin bumbooyinku si fiican uma shaqaynayaan markaa waxay burburin karaan oo keliya isaga iyo goobtii qasnadii lacagta ku jirtay
Red weli waa inuu badbaadiyaa gabadhiisii yarayd oo hadda oxygen la'aan u dhiman rabtaa inkastoo uu ku dhibaatooday balse ugu dambeyntii wuxuu dib u helayaa xirfadiisii ugu dambeyntii si buuxda ayuu badbaadinayaa gabadhiisii dhammaadka filimkana Red iyo xaaskiisu waxay ku wada hadlayaan gurigooda iyagoo la yaaban waxa ay sameeyaan maadaama ay ku guuldareysatay farshaxankii xaaskiisu nasiib wanaag wax yar kadib waxa imaanaya Drake oo u sheegaya in dhammaan sawiradeedii Joel lagu iibsaday lacag gaaraysa $300,000 waxaana soo baxday in dadku ay jecleysteen farshaxanka Joel filimku wuxuu ku dhamaanayaa qoyska oo u dabaaldegaya hantidooda cusub haddaba aan su'aal ku weydiiyay daawade commentiga noogu reeb wixii filimkan aad ka fahantay sidoo kale haddaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like gare si markaa dad badan u gaaro waana kaaga mahadcelinayaa daawashada ilaa halkan aad soo gaadhay intaan muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu